السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له الصوماليات وإذن سلامي سيدة إيتين الحمد لله وفي عنا إذن كان سيدة سيدين رجينا إسكا بضم الحمد لله رب العالمين إلهي بها مهدا إسكالي مركل إلهي إسكين سعليي ما أنت بحان ربا إنا كهالله channel كي هذا درتكو عصب تاهي سول وو سبسكرايب كان إيسار هكا إلوبين لايك كان هكا إلوبين هذا هوري إيليسي جوجتين لايك كوق قبا إن شاء الله la soco insha allahu channelkii waxyaaba badan ayaan kusoo gudbi doonaa insha allahu maanta waxaan rabnaa inaan ka hadloono topic xasaasi ah topicaasoo ah gabdhaha single iyagoo niman qabaan oo ninkana mataqaana ama taraagalo u yahay ama ninkii uu lacag badan sameeyo oo ka dhigayaan iska bixinayaan ninkii oo dhahayaan aniga waxaan nahay single mother baan nahay ninkana may waxaan nahay separate separate ayay dhahan ninka separate ayaa nahay ninka wuu la nool yahay separate lama aha oo dhahaya intaas ayuu isiyaa for example ninka waa taraagala waaye waxaa tiri ninka intaas ayuu isiyaa ama $1 oo kale uu isiyaa leedahayba aad ku qorate ninkaadina wuu kula joogaa ugu wade oo meel ma ka aadin oo shaqadaas markuu ka imaado gurigaada toos usoo aadaya waxaad sheegaysana waa been intaas sidaas oo tahayna waxaad rabtaa lacag inaad save garaysid oo ama lacagtaas aad wax ku qabsatid horta number 1 waxaad sheegto horta waa xaraam ilmaha wadanka ku koronaynin hadda xaraam ku korisid dee anagoo marka hore qaado taagnin ba haddana hadda xaraam ku korisid ay ka sii daran tahay because Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalin ayuu ku weydiin doonaa markaad tiraada ninkaadii ku qabi oo xalaash ah aad tiraadid ninkaan boyfriend ayuu mataqaana waana ninkaad xalaasha ku qabi waa because of ina lacag save garaysid waa dambi wada horta mataqaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad ka gasho oo meel ku yeelo waa number 2 waxay tahay ninkan Soomaaliyeed ood ka bixisay wixii oo dhan ood guri ee qaadatay oo maybe section 8 ama wixii loo income ah aad qaadatay oo waxaan kule ilmahaada wixii cunayaan aan ku dhahay dawladda waxeedii ay cunayaan ood leedahay ninkaan ay tahay lacag ii soo qabana lacagtaas oo ani isiinaya horta gabadhii walaashii eheeday waxaan rabaa inaan wax ku sheego ninkaas Soomaaliyeed sirtiisa ma gaaraysid in Soomaali sirtiisa inaad gaartid habarteeda ka tahay nin oo dhan ay ka tahay nin Soomaali ma ahaba nin oo dhan ay ka tahay lacagtaadi ood adiga Ilaahay xaqiisa subhanahu wa ta'ala aad dambi ka gashay ood tiraahday ninkaan waxaan kala nahay separate ood Ilaahay uga cabsan weysi horta lacagta adiga ma cuni doontid because intaas soo gabdho ay ku dhacdeen haya lacagti ninkii oo mataqaana aad beentaas Ilaahay aad u gashay ood beenta u sheegtay naaga kala ayaa bana isteedada u joogaan lacagtina ma heli doonto adiga oo lacagti kala naaga kala siinaya ninka tiraagaad saartay war aad adiga ka haysid male state kasta waxa la naag bay ku leeyina la nimankaan ka Ilaahay adiga nimanka dhan ba dhihi kari most of them waxay haystaan nimanka tiraagalaasha naagay haystaan lacagta adiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad dambi ugu gashay oo leedahay lacag oo ninkan noo aruurina lacag baan ka qabsan doona alle horta lacagta ma heli doontid Ilaahay dambigiisna meel ku taala ilmahaadan wuxuu ku sugnaan doona Ilaahay ba ogaanto because beenaad sheegto ilmihi xaraam aad siinaysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku dhahay xalaasha quuta kumudin xaraam cun kumudin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku dhahay ilmaha aad korinaysid xalaal si xaraan ha siin taas waxay kamid tahay xaraanta aad siinaysaa kamid tahay ilmahaadi ninkina kumu keenin lacagna kama helowsid lacagtii aad rabtay inuu adiga ku siiyana bahal naake oo bahal gabar bahalka u fadhiisan ku tubada ku suranaysa jog markaas aad ninka adiga dhibaato kasta aad la soo martay oo gaajo kasta aad la soo martay oo adiga waxaan ku dhahay ilmihii aad ku kadeedan tahay 7 cunug 5 cunug 4 cunug 6 cunug oo yar aad haysaa markaas aad ka nasanayna ku leeyahay ilaa ninka waa ka maqan ninka adiga wuxuu ii jiraa track aad iska dhawaysaa ya baad ku kadeedantaa ku leeyahay iskuulkoodii
cuntadoodii dugsigoodii jiradoodii isbitaalkoodii adeeg kaligaa ilaahaygaada waa wixii inaad ka qabatay maxaa waxa ugu qabatay ninkaas inuu lacag kuu sameeyo maxaa dambiga u galowsaa inuu ilaahay ninkaas lacag kuu sameeyo maalin lacag badan ku siiyo lacagtuu ku siin lahaa adi aad sugaysin oo dambigaas oo dhan u gasho dhibaatas aad kor u saaratin ba hal gabar oo Soomaali ah ba waxaan kule intay meel u fariisato yaa ilaa adi ilmihii baad kadantay ilmihii inta u koreen tan ma taqaana ilmihii u koreen oo waxay ka fikiraysaa aan jirin yaa ba waxaan ku leeyahay waxay samaynaysaa ayaan ku leeyahay tubada un bay ku surunee tubadu markay ku suruto tubadii un bay saa ugu surunaysaa tubada markay saa ugu suruto waxay leedahay raaliga ahad cilmaa cunug yara dhibay marka tubada intay saa ugu suruto baa lacagtii oo dhan iga raali ahaad I was focusing cunuga meeshan focus karina ay dhibaayay waxa waaye in lacagtii adiga aad sugaysi bay gabar ka halkaas intay tubada u surutaan ku leeyahay yaa baa lacaga adiga weligaa lagu siinin adiga gaajada kusoo ninkaas kula soo joogtay adiga la soo jabtay oo la soo rafaaday adiga maybe ilaa Afrika aad isla soo nooleedeen oo waxaan ku ama inta isku guustay ama adiga dhibaato badan isla soo marteen lacagta ilmihiis u qoor waay oo adiga intaas soo dhibaatay oo ilmahaas u hayso ku siin waay yaa bahal kale gabar oo waxaan ku leeyahay halka fadhido oo dhahaysaan qole aboo macaan oo aboo hebelow aboo xabiibo xalay maanta saxan cuntada ku sii kari sabayto ku sii diyaariyay bahal maraq baan kaaga soo tuuray bahal cunta inta kaaga bahalka u fadhidaan ku leeyahay yaa lacag adigu weligaa ku siino ayada siinoyaa lacag adigu weligaa ku siinin oo adiga weligaa waxaan ku dhahay ku keenin boo abaaheelida dakab way jarmsanayaan ku dhahay yaa lacagtas ogow hadee dambiga ilaahay baad gasho ilmaha xaraan baad siisay number 2 adiga ilmihii adiga qorta iskaga jirtiin wax ka nasinay male marka anigu waxaan idin dhihi lahaa intaas oo qas ayaan hayaa oo dhacday oo hadee wax xaqiiq oo run waa dhacday yaa comment kan igu soo qor hadad haysid in qasa because it's going on every single day is happening something like that marka maxaa ku roon yaa waxyaabaha marka ugu reen karta ma taqaana ayaan ku siinaa tibka inta ku siinaya horta dambi ha galin oo ilaahay dambi ha ka galin subhanahu wa ta'ala ninkan ku soo qor wax walba ku qor gurigaas ku qor wax walba ku qor ceerta ha nigala goosto 0 soo istaaga yaa 0 soo istaaga ceerta markay waxba idin siinin oo inkamkiisa in la fiiriyo ceerta waxba idin ma siinayso isteedad way kala yihiin ceerta waxba idin ma siin doonto ama intii yar u qalantiin inay siinay inta yar oo ninka kiradaas uu bixiyo oo cuntadiina uu bixiyo oo bahalkiina uu bixiyo waad ka qabtaa marka abaa helay kala tubo meel intay ku suruto oo ma taqaan ay ka dhuuqdo ma helayso birki adigi ba birki ka badan ninka birki buu ku fikirooya laakiin markaad adiga u samaysay asiisa jaaniska oo lacagtaad ilaahay subhanahu wa ta'ala aad bent ugu sheegtay oo ilmahaadi xaraan ku siisay oo dambi aad gashay oo ninkaadi xalaasha ahaa aad tiraaday ma taqaana waxa waaye boyfriend oo aad tiraaday oo ilaahay agtiisana waxa taqaana waji ku aalin because dambi aad gashay because ilaahay kuma dhinin ninkaadi xalaasha xaraan ka dhigmo because of hunguri diinteen wax walba waa no macneese waa wada ognahay haddii xataa diinta garin waad maqashay inay xaraam tahay laakiin istir waxa jirtina lacag safe gareysa the same time lacagta ninka kuma siino bahal gabar halka u fadhido ku dhurooya as long as uu bangigiis inta u soo buuxsatay Soomaali adigu kuma siina lacagtaas gabar kale ka furtiya ama meel kale wax kale ku qabsiya adigu kuma keenay lacagtaas marka maxaa idin roon ilaahayna dambi ha ka galin ilmahaadana xaraan ha siinin isku qorto waxay dawladda idin karto waa kaas intaas ninkeyga intaas balkaas uu ka shaqeeya halkaan waa kala farta ka saar kama saartay waxay idin garan karto markaas idin go oo ma taqaan kamka isku xisaabanaysa way arkaysaa hadad u qalmin inay wax kale idin ma siinayso waa asaga bixina old guriga kirdiisu bixina cuntadiinu bixina wax walba bixina everything caafimaad ku bixinaya
laakiin markaad caafimaadkan u bixiyo cuntadana u bixiyo guri kriisna ay ku taagan tahay gabar kale oo tabo ku surutay oo waxba aan u soo tirin yaa lacagta kuma baabi'in kara because lacagta adeeg kuu imaanaya ilaahayna dambi kamaad gelin ilaahayna dambi maad ka gelin marka waxaan idin leeyahay gabdhihii walaalahay wax waa nigu badanta taas gabdhihii oo dhan niman xataa waxaa jirta wiilil xataa waxaa jira inay shaqaystaan rabaan aad ku cararaysiin aan ku dhahay low income yaasha aad ku cararaysiin section 8 aad ku cararaysiin iska dhaaf wiil waxaa jira hadda koor aan ogahay oo waxaan ku leeyahay waxaa oo walaalkii xataa wiilkaasay ta gabadha waxay tiri walaalo wuxuu dhawaan shaqaystaa tiraag baan saar aan inii biilaa joog maya bay tiri way ka bixisay igu ma jiro sid bay tiri ceerteeda baan aadaya wiilkii markii daba maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay inuu shaqaysan waayo uu mas'uulkiisa gabay because mas'uuliyadeed ka qaaday ninkan waa mas'uul adig ka qaaday waa rijaal waa mas'uulkii markaad ka qaaday cunug qofka muxuu noqonaa darbi jiif iyo wuxuu kala noqonaa ma taqaana lacagtii adiga lagu siin waa inay bahal kala gabar kala halkaas ay waxaan ku dhacay tubad ugu surto oo adan lagu siinin oo adina aad dhibaato ku taar maxaa dhibaatadaas ku geysay oo ilaahayna dambi ugu galaysaa oo ilmahaada xaraan u siinaysaa ya ku qor wax walba ku qor everything ku qor markaad ku qortid ninkaasay waxa waaye asaatiis haystaa waa mid kale intuu ka fikiraa horta waad ka raysay markaas adiga tii ilaahayna ma taqaana dambigaaga kuuma qoraa adigana waad ka raysay because wuxuu ka fikiraa ilmihii cuntadoodii wuxuu ka fikiraa kiridoodii wuxuu ka fikiraa wixii oo dhan meel u yeelo ilaa abaayo kale wixii cunto male oo bahaltaba ugu surinaysa marka ana taas tibka aan idin siinaa gabdhaha Soomaaliyeed tii qaadanaysan ha qaadato tii kaloo ku shubaysa hadii ma taqaana badda oo u malaynaysa ninka inuu lacag u sameeynayo u keenayo yaa iga soo qormeel baad iga qoro doontaa hadda uu ku soo gaar videogaas gabdha badan ayaan hayaa oo dhibaataas ku dhacday gabdha badan oo lacaga ayda la siininaan ku leeyahay waligeed aw siininaan ku leeyahay uu siiye oo shalay bartuu siiye oo wax wan cunug u haynin yaa tiis 7 cunug iyo 5 cunug haysin $1 aan isla wax yar leh $10 la siina $10 ama ti ugu badan waxay dira $500 u siiya ama ti ugu badan waxay dira $10 nin tiraaglaha waxa dhaysa $10 u siiya you know how much he make it by monthly he make a lot of money wiilkii tiraaglaha ay maqlaan iga raalaho runta idin sheegay ilaahay ka cabsada wiilashan hadda u soo noqonayo ilaahay ugu cabsa gabadhaada ayuu know gabadhaas ay dhibaatada ka haysata ilmahaasayto ayuu know gabadhaas hal cunug oo habeenkii saxan waa inay hurdeen ma ogtahay dhibaatada iskuulka haysta maanta 12 jeer laga soo wacay si noqonayso ma ogtahay ilmahan kale celiskooda dhibaatada ay ku hayso lacagta ayda u qorwaysa gabar kala siine oo because ku soo qortay I love you iyo xabiibi iyo xayaati iyo macaano iyo sawaayada waa ku hogaaji only laakiin tii rafaadka ku soo martaan ku dhaay silca ku soo martay ilmahaad ilaa hadda silci ku jirtaan ku leey uma qorwaysid ilaahay ugu cabsada gabdhaha aad balan balseen ilaahay ugu baqa ilaahay ugu cabsada ilaahay wuxuu ni dhaay 4 guurso laakiin kumu dhihin ilaahay kumu dhihin ya tan lacagta u badi tii ilmaha xeenta ku haysidna wanta si kumu dhihin taas ilaahay wuxuu ku dhaay xaq soor ku dhaay oo man xaq soor haysiin ilaahay ugu cabsada gabdhaha ku rideen jirida gabdhaha isbitaalada geliseen ilaahay ugu baqa wiliyo Soomaaliyeed waad ka darteen bariyaan horta ilaahay ugu cabsada naftaanay meelay joogto warka meeyst adoo traagooda traag la kugu dhaco nafta ka baxda dhici karta gabdhahaada ilmahaadana saad u qiyaamaysan ku leey qiyaanadan ay waxaan ilaahay wuxuu ku qoran ay kaaga sii horeyso ilaahay ka cabsado waxyaabaha aad xiisada aad qabtiin oo naagaha aad lacagta ku xaqaysiin oo ilmihiina waxaan ku leeyahay dheebarka wax loo gado la iska daayay intaas aan ugu baxayaa in barnaamijka kala soo wada barnaamijka kale ku soo xigo doona wuxuu ahaan doonaa duu ilaahay yiraa ya dadkan Afrika ka dhisayaan guryaha oo American iyo wadanka ay joogan iyo low income kooda jiraan dawladda tuugsanayaan ilmahooda ku korinayaan meelaha ma taqaana ugu xun waxaan ku dhahay low income ko ilmihii ku halaabeen oo ilmihii waxaan ku leeyahay drug wada barteen ya lacag kasto la helana waxaan ku leeyahay waxa lagu shubay Afrikaan waligoodna ma degaan intay baxaan intay xaq tagaa lama degaan laga ma yaabo ya balaaya u dagaysa halkaasita taasna waa barnaamijka kala soo socdo waa marka waxa idin leeyahay maalintii iyo habeenkii waxa idin wacnaat walaali iga raalahay qofan ku dhaga hadlayna ma jirto wallahi it is something going on with Somali waxaan saad Somali u nahay community-geena waxyaabaha waxa ka socdo waa marka waxa idin leeyahay khair iyo baraka ayaan idin ka tagay waxyaabaha aan sheegayna waa wax run ah waa xaqiiq ah
marka waxaa idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.